daawadayaal barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaynaa xukunka xoolaha lagu qalo Yurub iyo Mareykanka. haddaba intayna barnaamijkeena u gelin waxaa naga xusuusaa subscribe-ta iyo like-ta. xoolaha lagu qalo Yurub iyo Mareykanka ama guud ahaan reer galbeedku waxay qaadanayaan xukunka kitaabka kitaabkuna waa Yuhuudda iyo Nasaarada, waana la beeniyay in la cuno xoolaha ay qalaan iyo cuntooyinkoodaba, balse xoolaha ay qalaan mushrikiinta iyo kuwa sanamyada caabuda ama kuwa aan Ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn ma banaana in la cuno, waana xaaraan. xoolaha ay qalaan sida xoolaha ay qalaan mushrikiinta Shiinaha, Kuuriyada iyo kuwa la midka ah, xoolaha الكتاب إلى حلالهين وحاول آية القرآن اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم maanta waxaa la idin xalaaliyay cuntooyinkiina wanaagsan iyo cuntooyinkiina kuwa hadda ka hor la siiyay. kitaabka waa idin xalaal, cuntadiinuna waa u xalaal ayaga. cuntooyinka kitaabka waxa Ibnu Cabbaas Ilaahay raalliha ka ahaadee ku fasiray waxa looga jeedaa waxa ay gowracaan. sidoo kale rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuu cuni jiray cuntooyinka kitaabka, waxaana ugu xoogan xadiiskii ka warramayay laxdii la sameeyey ee loo siiyey rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا تقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك إلى الرلاء كهذا وحلقوري إن كبر يهودية أي أكنت النبي النبي حرس كركيسا تلحس ميسان waanu cunay waana loo keenay gabadhii waxa lagu yiri madilna nabi Allah wuxuu yiri maya igama suulin inaan ku garto hilib dalqaha. xadiiskan meeshaan ka daliishayna waxay tahay in nabigii naxariis korkiisa ahaatee iyo saxaabadiisuna ay cunaan hilibkii yahuudiyadu u soo hadiyay lamana weydiin in sifa shareecada waafaqsan loo galay. haddaba inagoo ka duulaynaa daliiladan isugu jira aayadda quraanka, xadiiska nabi iyo ijmaaca ummadda islaamka, waxaan leenahay xoolaha lagu qalo Yurub iyo Mareykanka ay qalaan kitaabku waa u xalaal muslimiinta wayna cuni karaan. dadka reer Yurubka ah ama Mareykanka waxay ka mid yihiin kitaabka xitaa haddii ay ka badan tahay mulxinimadu. ka waran haddii ay bisinka u qaban ama aanay u qalin sifo shareecada waafaqsan. aayadda quraanka ayaa Ilaahay inagu faray inaynan cunin xoolaha aan bisinka loo qaban. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هؤلاء وحا لغو حسين مغا إلهي آياتها أشرفت الله وحي نغريبيسا إن الله عنين wax kasta oo aan bisika loo qabanin sida xoolaha la gowraco, sanamyada ama bakhtiga ama xoolaha wixii meel buura ka soo dhaca oo sidaas ku dhinta iyo wixii lamida xoolaha muslimiintu ay qasho waa xalaal, lamana weydiiyo inay bisika u qabteen iyo in kale. sidoo kale xoolaha ay kitaabku gowracaan waa xalaal, lamana weydiinayo inay bisika u qabteen ama sifa shareecada waafaqsan ay u qaleen, sababtoo ah asalka xoolaha ee kitaabku waa xalaal. sababta ay culimada islaamku u leeyihiin lamana weydiinayo qaabka ay wax u qaleen iyo inay bisika u qabteen waxa weeye waxay ka duulayaan markuu nabigeena naxariis korkiisa ahaatee la siiyey laxdii subaysneed ma weydiin qaabka wax u gowraceen iyo bisika u qabteen toona. fiiro gaar ah haddii aad adigu aragto ayadoo magac shaydaan lagu gowraco ama neefka xabad lagu dhufanayo ma cunaysid hilibkaas, sababtoo ah goobjoog ayaad u ahayd inaad bisinka lagu qabanin. balse haddii aanad goobjoog u ahayn waa xalaal hilibkaasi, bisinkana adiga u qabsanaya markaad cunayso. haddaba cuntooyinka carruurta lagu siiyo iskuullada ma xalaal baa? cuntooyinka hilibku ku jiro la siiyo carruurta dhigata dugsiyada dalalka reer galbeedka waa laba mid: inay yihiin hilib asalkiisu xaaraan yahay sida doof iyo hilibka asalkiisu xalaasha yahay sida adhiga, digaaga iyo lo'da. haddii hilibkaasi doofaarka yahay waa xaaraan xataa haddii bisinka loo qabto oo nin muslimi gowraco.